maxaa u dambeyn doona Jose Mourinho iyo Manchester United ayaa mar kale bareejo lagu qabtay kulan ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Wolves ciyaar ka dhacday garoonka Old Trafford. Sir Alex Ferguson ayaa muddo kadib ka soo muuqday garoonka Old Trafford isagoo daabanaya kulankaasi. Sidaas darteeda xaaladda Manchester United taageerayaashooda kuma qanacsana sababtoo ah lixdii kulan ee la ciyaaray horyaalka Premier League Manchester United ayaa lumisay guud ahaan 8 dhibcood. Taasina uma wanaagsana Jose Mourinho iyo kooxdiisa. United hadda waxa ay ka soo muuqanaysaa kaalinta shanaad ee kala sareynta horyaalka dalka England ee Premier League iyadoo la ogyahay inay ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Tottenham oo kaalintaas rabta. Sidoo kale Arsenal weli ma ciyaarin. Sidaa darteeda xaaladda uu galay Jose Mourinho waxay ku noqon doontaa mid cadaadis ku saaran shaqadiisa kooxda kubadda cagta ee Manchester United uma wanaagsana. United dhankeeda maamulkeeda waxa ka go'an inay go'aan gaaraan si u bedelaan Jose Mourinho kaasi oo ah tababare inta badan aan kooxda waxa u wanaagsan aan garanaynin. Mourinho isbedelada uu sameeyay darteeda waxa dhacday in Manchester United heerkan hadda ay maraan iyagoo 2 kulan laga badiyay kulan ay bareejo galeen taas oo ka dhigan in guud ahaan 8 dhibcood ay lumiyaan kulamadii la ciyaaray horyaalka Premier League kaliya 10 dhibcood ay shaqeysteen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe kubadda cagta tube like sar muuqaalkan share garay lana wadaag asxaabtaada mahadsanid.